wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur wareysiga khaaska ee maanta uu siiyay telefishinka Cable TV waxa uu sidoo kale kaga hadlay xaaladda amni ee Soomaaliland isagoo sheegay in Soomaaliland iminka ka mid tahay dalalka qaaradda Afrika ee ugu nabadda wanaagsan. wareysiga uu siiyay Cable TV waxa uu baaq u diray dhalinyarada aaminsan mabda al-shabaab ee ka dagaalantay koonfurta dalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay ka toobad keenaan mabda ay hore u aamineen. waxaanu yidhi runtiina waxaynu ugu baaqaynaa xubnihii dhalinyarada ahaa ee fikirka qaatay ee dagaalada ka qayb galay haddii ay ka waantoobayaan oo ay taa ehelkoodii iyo dadkoodii kala xidhiidhayaan ay wanaag iyo nolosha si deganaan u joogayaan waxaynu u fidin karaynaa cafis way ibn aadamku dhan waa khaldamaa haddii noloshoodii dib u bilaabayaan xubniheenii halkan ka tagay ee deegaankan ka soo jeeday waxaynu ogolahay inaynu soo dhaweyno haddii ka waan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka hadlay mowqifkiisa ku aadan labada xil ee isku hayo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro. runtii maantana de xisbiga dhisan ee siyaasadda dawladdan ay ku dhisantahay waxa weeye xisbi la yiraahdo kulmiye waxaan qaatay siyaasadda kulmiye xilkan maanta ugu hayaana waa xilalka ugu miisaanka roon ee siyaasadda xisbiga kulmiye marka hadda suurtagal ma aha inaan urur kale dhiso suurtagal ma aha ina suurtagal mayso waxa timi ma isku hayn karaa mise iskuma hayn karo waxay u baahan tahay in sharciga la weydiiyo ma jiro ilaa hadda anigu markaan aqligayga ku eego sharci oran kara iskuma hayn karo waayo dee goobaha dhammaan positionska siyaasadeed ee heer deegaan iyo heer baarlamaan iyo heer madaxweyneba dhammaan xilka waxay ka wareegi karaan iyagoo tartamaya imka maayarada dalkoo dhan way tartamayaan waxay xilka ka wareegayaan marka ay golo deegaan kala la doorto marka taana waxay ila tahay inay the political boss ay tahay qofkuna uu xaq u leeyahay xorriyadiisa kale ee siyaasadeed. wareysiga khaaska uu siiyay telefishinka Cable TV wasiir Duur sidoo kale waxa uu kaga hadlay warqad uu gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Sinaayo ku saabsaneed in loo baahan yahay in gobolada galbeed qaar ka mid ah deegaanada simaada ay ka dhacaan doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigan la filayo. marka runtii madaxweynaha warbixin baan u gudbiyay aan leeyahay goobahaasi waa goobo nabadgelyo ah oo nabadgelyadoodu sugan tahay dadkooduna u diyaar yihiin inay waxna doortaan lana doorto xaq dastuuriyana ay u leeyihiin. waxa kale oo madaxweynaha u sheegay in deegaano ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland maqnaanta ay doorashadu ay ka maqan tahay ay inagu tahay qaranka nusqaan sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa in goobaha doorashadii ay xaq u lahaayeen iyo codbixintii ay laga qabto commissionkana ogeysiin baan siiyay waxa dhiman ee ah muranka iyo talada kala duwanaanshaha deegaanada ay dadkaasi raacayaan gobol ahaan ama degmo ahaanna si taladu u ballaadhnaato oo layla wadaago madaxweynaha waxaan u soo jeediyay in guddi ka ballaaran loo xil saaro. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland wareysiga uu siiyay maanta Cable TV sidoo kale waxa uu kaga jawaabay eedeymo u soo jeediyo oo ah inuu xiriir la leeyahay ururka Islaax ee imika talada dalka Soomaaliya. isma naqaano ninkan madaxweynaha Soomaaliya isma naqaano shakhsiyan isma naqaano mana dhisin isaga laakiin Soomaaliya waxa hubaala in ay u baahanahay inaynu xiriir la sameeyno hor imikana inaynu la sameeyno xukuumadda aan ka tirsanahay waxay Soomaaliya la wada hadal soo jiray imikana insha Allah bidmillaahi baari waa la sii wadi doonaa marka raad waan ku lahayn doorashadii raad baan ku lahayn waayo waxa jirta cid u cadawa Soomaaliland iyo cid wada hadalkii la sii wadi karo marka xiriirkan la lahayn wuxuu ahaa xiriir warisgaarsiineed waliba aniga iyo xubnaha aan ku jira xiriir baan la lahayn warisgaarsiineed waxaanu ka taxadiraynay cidee aan wada hadalkii la wadi karaynaa cidee si aan